haddaan u soo jeesano dalkeena maanta halku marayo waxa weeye dawladda maanta joogta 7 sano horteed baa xilkan loo tiriyay waxa loo tiriyay Soomaaliland oo ah ilmo yaro kale oo raad qaad ayaa loo tiriyay waxay ahayd in raad qaadkaas la koriyo la taabageliyo la qaangeliyo la dooniyay markii talada la wareegeen dalkani nabad buu ahaa doorashooyin hore ka dhacay tii dawladda hoose ka dhacay waxa la doonaya markaa in la kubciyo ilmahaas hasaate waxa weeye dalkii lama kubcine waa la fadhataystay inaan oran karnaa waxaad arkaysaa markaad eegtid qayb kasta oo maanta dalkeenu ka samaysan yahay meel korta ma jirto tacliinta haddaan eegno iskuullada maanta tacliinta waxay noo dhisaa UNICEF noo dhisaa dawladda waxa laga doonayay inay macallimiin keento mushaar fiican qaato waan ognahay maanta iskuuladeena dawladdu ay hayso caruurta dusha laga xiraa ilaa inta 12 gaarto si aan daaqada uga dhicin laana macallimiin ma jirto waa ogtihiin macallimiinta maanta shaqaysa mushaar ku fiican ma qaataan waxaad arkaysaa xagga waxa ay caafimaadka maanta waxa way 60 gobol maalintii dalka la xoreeyay 6 magaalo ayaan caafimaadkoodu shaqeynayay maanta magaalo qura oo caafimaadkoodu cusbitaal si buuxo shaqeeya ma jirto dadkeena waxaad ogtihiin maanta in badna haday saan Yurub qabta ama dibadda qabta ay waayeen visa iyo passport badna ay Ethiopia tagaan laakiin magaalo qura ay ku hakadaan aan jirin caafimaadka marka soo eegtid xagga ciidamadeena adduunka ma dhacay wadan la xor baan nahay oo 18 sano jira oo darajo aan lahayn darajada ma ictiraafka ku xiran tahay waan la doonay in ciidamada sameeyo tayo leh oo dalka difaaca dalna hadduu yiraahdo dooni baan isku taagay cadawgu soo badan yahay haddaan u dhaqaalihiisa difaaciisa midna samaysan muxuu ku faan karaa maanta difaacna ma haysno dhaqaale alla inoogu habrina ma haysno way ka seexatay dawladdu waxa ka seexatay siyaasadda dibadda wasiirkan wuxuu yaqaanaa malaha siyaasadda dibadda saaxiibnimada shakhsiyada uu yaqaan wadamadu leeyahay waan xudxudanaa jaarka muxuu ka soo hooyay ma ahayn dalka been loo sheegay warqaduu ku dhiibay madaxweyne wasiirkeenu 2006 karidoor buu warqad ku dhiibay Addis-Ababa wuxuu ugu sheekeeyay shirkii baan ka qayb galo arrinteena la soo qaaday markaan Uganda tagna wasiir khaarijiye Uganda Rwanda hambalyaanay aniri arrinteeda waxaad keentay miiska uu nagu qosay arrinteeda miiska ma keenay weeyay waxaan arkay nin dibadda taagan warqad dhiibiya maga waxaan ku idin weeyay waninka dibadda taagan miya arrintiisa dhigaysataa ma ee waxaan geeyay ma jirto uu yaabay shalay tamad wuxuu lahaa wasiir khaarijigu waxaan jecelnahay inay nagala shaqeeyaan arrimaha dibadda 2007 kana waan siin waxaan ku yiri waxaan marayaa Yurub iyo Mareykan maxaan idinka gaarsiinaa adduunka way aamusay ومحمد كوي إنها حدثك وحنا كذا واحد رجزي نقطة ما كان تجي واشنطن إنه الله حضرني كي واشنطن إنه جويلي هتصل فايس على ورالي يعد غائره خارجية هتصل ونجوه الجوسة خارجية أنا كنا خارجية ما الله حضر لي أيوة أنا والله فردنا السوي عمتنا سياسة أي لا صح هذا الشيء ناقد خارجية وح نلصق كده بس بدومية شكواه ويجي ما دمان مغلي وحيري لأنه هو يوصل أنا هأركب بكل هو وحكاه الجوسة يا حتى أنا ذلك وصل له بإنجليزي وحكينا معها وحصو عطانا سين ذلك كان خالي لجهين أن أونس لجهين تعال لجهين الاعترافه ما كان كنت سوق قالوا أيال الديدي ده واحد دي شيء ما تحوي حصو عطانا صح إن ذلك كان أن ما مكاد تشوفه فرتدي إن أنا ضاعت كهين اعترافه واللي كانوا مع رجال مدحمة وحنا كل اعتراف يشري وحنا نتي سومالنا وقت ضاعت إن وضع كان الاعتراف لكن وحوي لو أفكيسي وكيس مالي فعل كيس هذا وحي توسيا إن أنا ذلكن ضاعت كهين لأنه هذا ضاعت كهين دغاليه ذي موريتشين دغاليه إني ما أنت حوله يكون ولا موريتشين أنا ما أورن سيد شريرة تقطعي هل الدلو لكن وحي وح متيستا أنت محكمة الله كانوا لقى هذا حيبك إن محكمة الله صاروا محكمة الدلو حكتاي وأنا كم متيسين واحد طنطان هذا إنه حكم ويدنا إلهي بحكم الدنيا واحد طنطان فازوا وين تقول بالشهرين هذا ما تحلو به وحوي دورشنا وين دورشة قلالوي الدونكم أفضل 2 مليون بنسية وحنا ولد ديال العك 6 مليون كانوا مسيون ولد ديال هاي
وحليه ورجرون كهاجستا أو ديار جريستا عن كسمين دواجين الآن وقفكم ممكن ليه واحد دون يدور شح حلالة دواجلتك كوه وين لو قالتك فوتينية ينو فوتينية السومان لاند بقى مش شيء اللي هتبتشر بقى ما اللي بيتبتشر بقى دواجلت ولا حلالين وانا لو قلت دواجلت سيركم إنه ضماني وحلو بقى مركب دلكينا واحد بهدي قاتشل وإن الدولة سمينا إن شاء الله تعالى قاتشل رجعنا شغال أنت ديك ما أنت وسارد الشبكة شو تشيل الشبكة هذا لك إن لها ضدك الله قلنا لها وأشتمك الله قلنا لها طبعا كنا قفك شغالين له دكتي ناس إنه لو ساقط تيجي ما أنت ولا كسوكع إن دكتي عمرنا دون إن شاء الله هونغ كونغ كده إن شاء الله تعالى وحدون الدولة ونكسن أو ملايسن أو الناس يجون تجبر من السنة وهدول دبيو خير قبائل الدينه وخير قبائلكم عرقنا هدول يهني دبده شوغنا عين كتر سنة دولة مدين صلى الله عليه وسلم كله بهاي وهو بها دولة لانجراء أو سير تنوكلا بقولك بقى فرتايس ضدك وحلا بها دولة ضدك تاجرسية بقولك تضباطهم ويانا ضدك تاجرسية له بهاي أنا وحنا بنا قاعد دام عندنا هنا دولة من نبق عرض السنة لأنه وقت الحالة حلو بهاي اللي بيدوبه دولة ضدك على قريب يسته لو بحنا waxaan ugu bula qaadinaa inaan dooro inaan ictiraafkeenan wala iibin waaye oo adduunka hadaad wax sameeyso suuqeyn weydid cidna wax ka iibsan mayso Soomaaliya ma iibgeyn adduunku inaga ma gardaqa inaga cid waxba u dhiibo inuu iibsaalabteedii ictiraafkeena sanad gudii insha Allah ta'ala wayn ku keenin doonaa insha Allah hadaan mudugno biya laanta ma dalka tahay reer miyigeeni maanta waxaan soo maray dooraato wadada qiimii degay oo guryahooda u dhisay kar way gaajaawadi dumarkiiba intay guryo awrti fureen ayay dhisay kar way gaajaawadi xoolahay dowladda waa laga joojiyay cid macaawino ma siisto abaarba ku dheeraatay waxaway inaan nabteelmiyeena gacan seenaa waa inaan dhalinyarteena tahriibtay hablaheeniiba yaa baxday waxaan ka